ayaa la kufsaday. Ninkeedii ayaa yimid xilli falkaas dhacayay. Wuxuu arkay wax walba. Weeraryahankii muddo yar kadib waa la qabtay. Laakiin markaas ayay haweenaydu samaysay wax aan qofna filayn. Waxay xiratay dhar soo jiidasho leh, waxayna aaday xabsiga si ay u booqato ninkii kufsaday. Laga bilaabo maalintaas, toddobaad kasta way iman jirtay, iyadoo hadba si ka qurux badan sidii hore u labisan. Marna kama hadlin wixii dhacay. Markii hore ninka xabsiga ku jiray wuxuu mooday inay u timid jawaabo. Indhaha kama eegi karin, madaxdiisana wuu hoos dhigi jiray. Laakiin iyadu waxay ku fiirin jirtay diiran. Booqasho kasta waxay kula hadli jirtay si degan. Wuxuu ka waraysan jirtay xaaladiisa, xitaa way dejin jirtay. Waqti kadib hadalkoodu wuu dheeraaday. Xidhiidhkooduna wuu sii xoogaystay. Waxay bilaabeen inay u muuqdaan lamaane dhab ah. Ninkii isagoo doonaya inuu mar kale la noqdo, wuxuu ku dhaqmay si wanaagsan gudaha xabsiga. Ugu dambayn wuxuu helay cafis xabsi ka soo bixitaan isla markiiba. Gurigeeda ayuu toos ugu tagay. Markuu yimid, iyadu waxay ku jirtay hagaajinta guriga. Wuxuu isagu ku yiri wuu ka caawinayaa si uu ugu muujiyo inuu isku dayayo inuu khaladkiisa saxo. Maalin kasta wuu iman jiray waqtigiisa, isagoo shaqo adag qabta, dididna ka daayo. Markay cabitaan u dhiibto, wuu dhoola cadayn jiray.